السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن وناكسن دلهانتين بداوضيال مeel kasto daafaha caalamka aad ka joogtaan halkani waa telefishinka caalamiga SRS TV Somali kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegayna xiriirka u dhaxeeya labada dawladood ee Turkiga iyo Soomaaliya taariikhda Turkiga waa mid soo jireena waxaana lagu xusuustaa khilaafadii dawladda Cusmaaniyiinta xilligii dawladda Cusmaaniyiintu waxay ahayd mid awood weyn ku leh guud ahaan caalamka waxayna u fiday danka waqooyi bari galbeed iyo koonfurba galbeedka wadanka waxay gaadhay wadamada ka hooseeya Morocco koonfurta waxay gaadhay Suudaan iyo Badda Cas barigana waxay gaadhay xadka Shiinaha halka waqooyigana ay ka gaadhay Ireland dawladda Cusmaaniyiinta waxay ahayd mid mas'uuliyad weyn iska saartay guud ahaan caalamka Islaamka waxayna muddo 600 sano awood ku lahayd guud ahaan dunida haddaba goorma khulafada Cusmaaniyiinta soo afjarmatay amaba ay soo gabagabowday markii Kemal Atatürk uu siixay heshiis la galay dawladihii ku guuleystay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo Turkiga aanu soo noqonay Turkiga iyo Soomaaliya xiriir intee leeg ayaa ka dhaxeeya xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya ayaa guuleystay sanadihii la soo dhaafay iskaashigoodana wuxuu ka mid ahaa in Turkiga ay tababarto 3 meelood meel ka mid ah ciidamada Soomaaliya safiirka Turkiga u jooga magaalada Muqdisho ayaa la hadlay warbaahinta markaan eegno wadarta guud ee Turkiga waxa ay tababarto 3 meelood meel ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo lagu qiyaaso 15,000 ilaa 16,000 waxay intaasi dheer ayuu yiri safiirka in meelaha kale iskaashigan ka sameeyay yihiin caafimaadkii waxbarashada safiirka u fadhiya Turkiga magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in xiriirka taariikhiga ee u dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya uu dib u laabanayo sanado badan ka hor laakiin horumarintiisa uu bilaabay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo booqasho ku yimaaday magaalada Muqdisho sanadii 2011 xilligaas oo wadanka ku jira abaaro isla markaana uu xilligaas Rajab Tayyip waxa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga booqashada madaxweynaheena 2011 ku yimaaday Soomaaliya waxay bedeshay wixii wadanka ka jiray waxayna xiriir ka dhigtay heer cusub ayuu yiri safiirka Turkiga ee fadhiya Muqdisho wuxuu sheegay in booqashada Erdogan ay toosh ku ifisay Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in Erdogan uu noqonayo hogaamiyaha kaliya ee Afrikaan ahayn ee Soomaaliya yimaado muddo 20 sano ah ayuu yiri safiirku in fariintii Erdogan ay ka farxisay Soomaaliya safiirku wuxuu intaasi ku daray in Turkiga uu sii wadi doonto taageerida uu siinayo dalka Soomaaliya oo la socota kaalmo bini'aadantinimo oo lagu eegayo baahida wadanka dhanka waxbarashada caafimaadka iyo amniga ayuu yiri iskaashiga militariga ee Turkiga uu la leeyahay Soomaaliya waa mid muhiim ah isagoo tixgelinaya iskaashiga militariga ee labada dal ayuu sheegay safiirka in ku lug lahaanshaha Turkiga Soomaaliya ay muhiim tahay iskaashiga militariga ee Turkiga kula jiro Soomaaliya ayaa muhiim u tahay wadankan waxayna qayb ka tahay amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada isagoo sheegay in rajada ugu weyn ee beesha caalamku ay ka qabto Soomaaliya ay tahay tababarida unugta xaqiijinaya nabadgelyada wadanka ayuu xusay suurtagelinimada in ciidamada AMISOM ay ka ka bixitaanka ciidamada AMISOM ayaa la hadalhayaa maalmahan xaqiijinta qorshaha kala guurka Soomaaliya oo lagu dhaqan geliyay la dagaalanka dibudhiska dawladda wado taas laga arki karaa sanadii la soo dhaafay iyo sanadkan tirada ciidamada AMISOM 2,000 ayaa ka yaraatay laakiin taas xaqiijintooda waxay ku xidhan tahay in la abuuro ciidamo Soomaaliya ah oo aad u tababaran
waxaa si cad u dhihi karaa in Turkigu uu yahay dalka Soomaaliya siiya taageerada ugu tayada wanaagsan safiirka wuxuu sidoo kale sheegay in saraakiisha lafdhabarta u noqon doona ciidamada Soomaaliya lagu tababari doono meelo khaas ah isla markaana la siin doono tababar midkooda ugu heerka sareeya marka hore waxbarasho asaasi ayaa lagu baraa Soomaaliya kadibna waxaa loo diraa gobolada dalka Turkiga halkaas oo ay ku qaataan tababar commandos marka ay dhameystaanna waxaa loo soo wareejiyaa militariga Soomaaliya ayuu yidhi safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya wuxuu yiri waxaan aaminsanahay dadaalada mu'assisiinta Maarif ay ka wada Soomaaliya si loo kordhiyo waxbarashada dalka Maarif shaqo fiican ay Soomaaliya ka qabteen mu'assasadu waxay ku dadaalayaan in la dhiso iskuulkaas aad ayaa loogu baahan yahay waxaa jira iskuul kale oo Maarif ay ka dhistay Somaliland macallimiintu way guuleysan doonaan خيار intaas ayaan ku soo gabagabeynayna warbixintan ku eegaynay xiriirka qotada dheer u dhaxeeya dawladda Turkiga iyo Soomaaliya intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waa aniga iyo asxaabta bahda SRS TV oo isku duubnida sida iyo nabadgelyo